munaasabadan lagu dhiirigelinayay in ka badan 200 arday oo ka qalin jebinayay kulliyadaha kala duwan ee heerka labaad master degree ee jaamacadda Accord University oo ay ka soo qayb galeen waalidiin macallimiin aqoon-yahano mas'uuliyiin ka socotay qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka dibadiisa iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ardayda dhameysatay heerka labaad master degree ayaa ka hadlay muhiimadda waxbarashada magacaygu waa Fahma Cabdullaahi Nuur maanta waxaan ka mid ah ardayda ka qalin jebinaysa Accord University heerkoodii labaad ee waxbarashada waxa farxad ii guul ii in aan dibadda ka bixin dalkaygii heerkayga labaad waxbarashada master degree aan ku qaatay maanta shucuurtayda aad u kacsantahay dareenkayga ma soo koobi karo magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdirasaaq Macalin Axmed waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Accord ka qalin jebisay oo bartay Master of Project Management aad ugu faraxsanahay maanta fursadan quruxda badan waxay ahayd halgan dheer aan soo galnay inaan maanta meeshaan imaano oo aan ku muujino shucuurteena ku aadan inaan gaarnay hadafkii ahaa inaan digriiga labaad ee waxbarashada xaqiijino magacaygu waa Maxamed Daawud Cabdulle kulliyadda sharciga ee jaamacadda Accord maanta waxay noo tahay maalin aad u quruxsan u fiican sharaf weyn noo tahay anagoo wadankeena joogna oo dadkeena ku dhex jirna oo dalkeena joogna oo wax walba guriyeena ku jirna inaan jaamacadii heerkii labaad aan qaadano gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Accord University Professor Abdulqaadir Bashiir Maxamed ayaa ka hadlay qiimaha waxbarashada ay u leedahay dalka ayseji drone oo ka mid ah macallimiinta jaamacadda Accord University ayaa u soo jeedisay ardayda dhameysatay waxbarashada heerka labaad master degree inay si wataan barashada tacliinta waxaan jeclaan lahaa in aan ku dhiirigeliyo dadka maanta qalin jebinaya ma ahan in aad joojisaan horumarkiina waa qalin jebiseen sax weli waxaa dhiman oo aan rajaynayaa ma ahan dhammaad waddada weli waad ku socotaan waxaa dhiman wax badan oo aad qabataan taasi runtii waa bilow sidaasi daraaddeed dadka master degree-ga ah waxaan rajaynayaa in aad gaartaan heerka PhD-ga have a problem with that. So please don't stop the journey, make it continue and aim higher. gudoomiyaha jaamacadda Accord University Professor Virginia Westerbeck ayaa hambalyo u dirtay ardayda dhameysatay waxbarashada heerka labaad ee master degree-ga waxayna ku boorisay inay si laban dadaalkooda ku aadan dhanka waxbarashada maanta waa maalin aad u dabaaldegaysaan aadna xasuusan doontaan idinka iyo reerkiina ama qoysaskiina tani waa bilowga horumarkiina waxaana rajaynayaa horumar ifaya Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho